Marka aad tagto dalkan ama aad maqasho waxaad dareemaysaa inaad tagtay caalam kale oon ka mid ahayn caalamkan aanu maanta joogno. Waxaadna u tegaysaa dadka ugu akhlaaqda iyo aqoonta fiican adduunka, waddankoodana ka dhigay midka saddexaad ee adduunka ugu horumarsan uguna dhaqaalaha badan wax ka yar 100 sano. Waxayna caan ku yihiin koboca dhaqaalaha adduunka, jahwareeriyey iyo weliba isticmaalka aaladaha robotka. Marka aad Japan maqasho waxaa maskaxdaada buuxdhaafinaya inay tahay waddankii ugu horreeyay uguna dambeeyay ee loo adeegsado atomic bomb ama hubka nuclear-ka. Daawaday haddii ay tahay markii kuugu horreysay eed soo booqato channel-keena, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto. Haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto, mahadsanid. Muuqaalkeena maanta waxaan ku dhigi doonaa macluumaad dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan dalka Japan iyo sida xawliga ah ee dhaqaalihiisa, wax soo saarkiisa iyo tayada waxbarashadiisa kor ugu kaceen wax ka yar 100 sano. Waa dalkii ugu horreeyay ee lagu dhuftay nuclear-ka 1945tii. Dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka, Japan waxaa ku habsaday musiibadii abid ugu weyneyd, waxaana laga burburiyey labadii magaalo ee ugu muhiimsanayd xilligaas, waa Hiroshima iyo Nagasaki. Waxaana atomic bomb ku dhuftay dalka Mareykanka. Waxaa ku dhintay ku dhowaad 129,000 ilaa 226,000 oo qof oo shacab rayid u badan, halka tiro badan oo kalena ay soo food saartay macluul, hoy la'aan iyo cudurro kala duwan. Ilaa haddana labadaas magaalo cidda ku dhalata waa Hiroshima iyo Nagasaki waxay la daalaa-dhacayaan cudurro dabiici ah oo uu sababay suntii ku jirtay nuclear-ka xilligaas lagu dhuftay. Japan ayaa ka kooban 6,852 jasiiradood, waxaana ugu muhiimsan 40 kale ah: Hokkaido, Honshu, Kyushu iyo Shikoku. 73% dadka uu ku fadhiyo dalka Japan waa buuro iyo kaymo lama degaan ah. Waa dal la daalaa-dhacayo musiibooyinka dabiiciga ah ee sida dhulgariirka, volkaanaha iyo tsunami-ga. Sanad kastana qiyaastii waxaa la diiwaangeliyaa 1,500 oo dhulgariir. Badanaa dhulka Japan ma aha mid ku habboon wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo deegaankaba, laakiin sidaas ay tahay dalka Japan ma aha mid caqabadahaas dabiiciga ah ay dib uga dhigeen adduunka. Waana dal ka mid ah 3 waddan ee adduunka ugu hantida iyo koboca dhaqaalaha badan, waxaana ka horeeya oo keliya waddanka Mareykanka iyo weliba China. Japan ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay waddamada magaalooyinkooda ku nool yihiin dadka ugu tirada badan. Guud ahaan, Japan ayaa hoy u ah in ka badan 127 milyan oo ruux. 98.2% oo ka mid ah dadka Japan ku nool waa Japanese ama waa dad rasmi ahaan kasoo jeeda dalkaas Japan. Tokyo waa caasimadda Japan, waana hoyga ugu dadka badan ee dalkaas. Tokyo ayaa ah caasimadda Japan, waana hoyga 36 milyan oo Japanese ah. Tokyo ayaa sidaa ku hantiday darajada koowaad ee caasimadda adduunka ugu dadka badan, waxaana degan tirada dad ee ugu badan dalkaasi Japan. Yokohama ayaa ku xigta, waxayna hoy u tahay 3.8 milyan, waxayna caan ku tahay dekedda. Osaka ayaa iyaduna hoy u ah 2.8 milyan, waana xarunta ganacsiga ee dalka. Waxaa jira magaalooyin waaweyn oo iyaguna muhiim u ah dalkaas. Japan waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin dadka ugu cimriga dheer adduunka, waxaana qiyaastii noolaadaan ragga Japanese-ka 81 sano, halka dumarkooduna ay noolaadaan 88 sano. Waxaa Japan ku nool 50,000 oo qof oo ka weyn da'da 100 sano. Cajiib Soomaha daawade. Middan ayaa ka dhigaysa inay Japan noqoto waddanka ugu dhimashada yar adduunka. Dhaqaalaha Japan ayaa wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka, warshadaynta iyo weliba dhoofinta kalluunka. Japan ayaa ka mid ah 3 waddan ee hoggaanka u haysta dhaqaalaha adduunka, waxaana ka horeeya oo keliya sidaan horey usoo xusnay waa Mareykanka iyo China. Isha dhaqaalaha ee Japan ayaa ku tiirsan wax soo saarka warshadaha, waana hoyga saddexaad ee adduunka ugu weyn ee soo saara baabuurta. Waxay soo saareen baabuurta kala ah Toyota, Honda, Nissan iyo Isuzu iyo kuwo kaloo badan. Sidoo kale waa waddanka koowaad ee dhoofiya kheyraadka kalluunka. 23% dhaqaalaha Japan wuxuu ku tiirsan yahay dhoofinta baabuurta, halka 38% uu ku tiirsan yahay dhoofinta elektaroonigsiga iyo alaabaha kala duwan. Sidaas oo tahay, Japan ma laha ilo kheyraad oo dabiici ah sida shidaal, macdano iyo beero waxyaalo badan oo kala duwan ay ka soo baxaan. Waxay ka faa'iidaysteen oo keliya cududii ay haysteen iyo kheyraadkii intii uu Ilaahay ku manaystay. Heerka shaqo la'aanta dalkan talo intee gaarsiisan tahay? Jawaabta ayaa ah Japan ayaa waxaa lagu tiriyaa inay 3% oo keliya ay shaqo la'aan yihiin. 3%na waxaa laga yaabaa inay yihiin dad waaweyn. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inay mentally disabled ay yihiin, laakiin 97% dadka Japanese-ka ah ee shaqada gaaray waa kuwo shaqeeya si ka badan sida adduunka kale u shaqeeya. Japan celcelis ahaan qofkii bishii wuxuu mushaar ahaan u helaa $2,614. Waa qiyaastii waa midka ugu yar haddii aan dib ugu noqono qarnigii 20aad iyo kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
Japan 1950kii waxa ay bilowday waayihii ay u tallaabsan lahayd horumarinta warshadaha iyo wax soo saarka dabiiciga ah ee beeraha, kumana qaadanin wax ka badan 20 sano in ay dhidibada u taagaan dhaqaalahooda, laabaana buuggii saboolnimada, kana baxaan waayihii adkaa ee soo food saaray dagaalkii labaad ee adduunka. Japan ayaa isku beddeshay si xawli ah, waxayna ka diyaargarootay cadaadiskii gumaystaha iyo hanti la'aantii duruufihii adkaa ee soo food saaray dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna noqotay waddan ku diirsan qududiisa shaqaale, wax soo saarka warshadaha iyo weliba beeraha oon badnayn. Waxaana sidaa ku dhammaaday cabsidii ay ka qabeen faqriga iyo dib u dhaca nolosha. Toddobaadkii dhaqaalaha Japan ayaa wajahay tartan adag iyo wajiyo cusub, waxaana hoos u dhacay wax soo saarkii warshadaha iyo dhoofinta agabka kala duwan. Laakiinse si kasta duruufuhu u adkaayeen, Japan waayuhu dib uma celinin, waxayna jibaaxeen maalmihii adkaa, waxayna soo gaareen halka ay maanta adduunka ka taagan yihiin, oo ah inay yihiin waddanka saddexaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. Dhanka waxbarashadu waa furaha guusha, macallimiintuna waa hogaamiyeyaasha koowaad ee horumarka oo dhan. Waa odhaah Japanese ah. Japan waxay xoogga saartay wax kasta ka hor qof walba oo Japanese ah sidii uu heli lahaa waxbarasho tayo leh, korna u qaadi lahaa waddankan ka kooban jasiiradaha ee ka go'doonsan adduunka. Japan ayaa leh waxbarashada adduunka ugu wanaagsan uguna tayada fiican. Ardayda Japanese ahna waa ardayda ugu cadaadiska badan ee guud ahaan adduunka. Waa arday waalidkood ku cadaadinayaan sidii uu u geli lahaa kaalmaha ugu horeeya, halka macallinka iyo dugsiguna uu ka rabo inay noqdaan kuwa ugu horeeya. Bal qiyaasi 60 ilaa 70 arday oo hal fasal ku dhiganaysa inuu qof walba laga rabo inuu ku baxo. Aad bay u adag tahay, laakiin Japanese way jibaaxaan. Japan ayaa waxaa jooga dadka ugu akhlaaqda wanaagsan adduunka, waana dalka kaliya ee falal dambiyeedka la diiwaangeliyay sanadkii uu ugu yaryahay adduunka oo dhan. Cajiib, dalka Japanese ah ma xiran dukaamadooda marka ay ka rawaxayaan, mana xiraan guryahooda marka ay ka soo baxayaan. Bal arag heerka ay aqoonta iyo waxbarashadu gaarsiisay ummado. Waxaa kaloo lagu ogol yahay Japan inaad seexato xilliga aad ku jirto shaqada. Waxay aaminsan yihiin in ay calaamad u tahay shaqo adag uu qofkani hayay oo ku bixiyay dadaal badan. Waxay kaloo aaminsan yihiin inay shakhsiga u sahli doonto ama siin doonto awood iyo xawaare sare, waxaana iska caadi ah inaad aragto dad badan oo jiifa xilliga shaqada. 57% oo ka mid ah dadka Japan ku nool waxay isticmaalaan tareenka, waxaana jira shakhsiyaad ka shaqeeya in ay kaliya ku riixaan tareenka si ay u geliyaan dadka oo dhan ama u leekaado dadka oo dhan. Bal arag, maxaa ka dhigaya Japan oo 98.2% ay u yihiin Japanese? 1. waa fogida halka ay adduunka kaga taalo. 2. waxaa aad u adag sida aad ku heli lahayd dalkugalka ama fiisaha dalkaas Japan. 51.8% oo ku nool dalkaas Japan waa cilmaani ama waddan diin haysanin, halka 34.4% ay yihiin dad Buddhist ah. 1% oo ka mid ahna waa dad muslimiin ah. Daawaday haddii aad ila soo gaadhay dhammaadka muuqaalkan, waad ku mahadsan tahay. Bal haddana ila daawo Japanese hadlaya iyo sida ay u hadlaan. どうも、ひなちゃんだよ。実はこの間、卒業しました。イエーイ。